walaalo badan ayaa waxay soo weydiiyeen sida loo abuuro geedaha kala duwan ee caanka ka ah Soomaaliya dhanka wax soo saarka geedaha sida basasha, barbarooniga, galleyda iyo wixii la mid ah. qaabka loo maamulo hadday noqoto abuuritaankeeda koobaad ilaa gurashada iyo sida suuqgeynteeda waxyaabahaas oo dhan inaan ka hadlo si wax soo saarka waddanka loo hagaajiyo ayay weydiiyeen. marka laakiin inta aanan taas bilaabin ayaa waxaa muhiim ah horta maxaa keena dadku inay xushaan dalag nooc ah oo ay dalagaas u doortaan ama maxaa keena qaabka ay dalagaas u abuurayaan. ilaa waxaa jira qaabab badan oo kala duwan oo dalagyada loo kala abuuro. marka inta aanan geedahaas aanan ka hadlin videogan waxaan uga hadlayaa qaabka aad u dooranaysid iyo sababta aad u dooranaysid dalaga aad dooranaysid. maxaa keenaya? ma ciiddaa keenaysa, ma cimilada keenaysa, waxyaabahaas oo dhan ayay ku xiran tahay. marka waxaan uga hadlaynaa videogan hordhac ahaan inta aanan videos kale oo geedaha ku saabsan inta aanan bilaabin ayaan rabaa inaan videogan hordhac ah aan uga hadlo sababtaas. marka fadlan ka faa'iidayso. السلام عليكم كسر هذا الفيديو كله يدين دياري سفام سوماليا ونقول تلاقلني إنك فايديستان ولا لها صوماليات مقعيقو على باشي فضل هدي أكو عصوبتها كنالك سبسكرايب ده بالك نتابو سيسا كودا في الفيديو كستان صادقنو لأنه وذاق وقد بي ولا لها كلا صوماليات سيوغا فايديستان وما سنتين سيدان شاكنا فيديو waxaan uga hadlaynaa waxyaabaha saameeya go'aamada xulashada dalagyada iyo nidaamkooda. nidaamka aad dooranaysid iyo dalaga aad dooranaysid beertada u dooranaysid waxyaabaha saameeya oo ay u baahan tahay inaad ka fakartid inta aad bilaabin ka hor ayaan rabnaa inaan hordhac ahaan aan uga hadalno videogan haddii la yiraahdo. waxaa jira waxa la yiraahdo sustainable agriculture oo waayahan dambe aad awood loo saaro. micnaheedu marka waxa weeye markii la rabo in cunto laga soo saaro ha noqoto xoolo ama ha noqoto dalagyada kala duwan ee beeraha laga soo saaro. marka la soo saarayo waxaa la rabaa in awoodda la saaro in uu yahay dalagaas dalag u qalma waddankaas in laga soo saaro cimil ahaan iyo dhaqaale ahaanba. marka kuma fiicna sustainable ma noqonayso in geed waddan qabow loogu talagalay in waddan kulayl la geeyo ama in waddan kulayl ah geed ku fiican in waddan qabow la geeyo oo markaas lacag badan la geliyo. sustainable ma ahan oo waqti dheer lama soo wadi karo. waxaan kaloo sustainable ahayn in ciidii ay halowdo sababtoo geedkaas abuuraysa darteed. ilaa lama rabo geedo ama beerasho wax u dhibaysa jiilka dambe inay dhulkeena ka faa'iideystaan. marka ujeedadan taas u sheegaya waxa weeye in hadhow markii aan rabno geedaha inaan ka sheekayno kaliya aan ka sheekayn doono haddii ilaahay yiraahdo geedaha aan isleeyahay waddanka dhaqaale ahaan iyo qiimo ahaan iyo faa'iidada ciidda iyo waddanka wax u leeyahay kaliya unbaan kuley aan ka hadli doonaa. dabcan waa jiraan dad oo geedo waddanka aan ku habboonayn oo sustainable aan ahayn rabo inay wax yar ka soo abuurtaan oo ay beerahooda ku samaystaan si tijaabo ahaana taas wax diidaya lama arko. marka waxyaabaha koowaad ee saamaynta ku yeesha dalaga aad dooranaysid iyo nidaamka aad dooranaysid waxa weeye cimilada ama waxa loo yaqaano climatic factors. climatic factorskaas labada ugu darani waa cimilada iyo roobka iyo waxa la yiraahdo relative humidity. marka dalaga aad rabtid inaad abuurto waa inaad ka fakartaa oo aad isweydiisaa su'aasha ah cimilada waddankan ama gobolkan aan joogo ma la qabsan karaa. maxaa yeelay cimilada iyada weeye midda xukuntaa geedku inta uu korayo xilliga ay qaadanayso ma 3 bilood lagu guranaya ama 2 bilood lagu guranaya. inta badan waxay ku xiran tahay cimilada iyo dabcan waxyaabaha kale oo aan ka hadli doono haddii la yiraahdo. waxa kaloo saameyn ku yeelan kara roobka isagana waliba markii aad isku haleynayso biyo webi aadan isticmaalayn iyo biyo ceel oo fiican markii aadan isticmaalayn dabcan roobka la'aantiis maba abuuri kartid ba xilligii roobka da'ay waa inaad la sugtaa dalagii. marka haddii daad uu ka jiro meesha ama uu ka jiro qalayl saameyn weyn ayuu wuxuu ku yeelanayaa dalagyadaadii oo dhaqaale xumo badan ayuu ku keeni karaa. marka sidaas darteed waa inaad ka fakartaa cimiladaada inta aadan abuurin ma isku qalmaan waa inaad su'aashaas weydiisaa. maxaa yeelay xitaa cimilada waxay keentaa cudurrada. kaba soo qaad dhadadii aan sheegayno kale markii ay jirto xilliga dhadadaas ay jirto haddii aadan beerta aadan
nafaqadii iyo daawadii loogu talagalay oo saxda ahayd aadan u isticmaalin waxaa laga yaabaa inay cudurro u keento sida kaba soo qaadba baradhadoo kale iyo yaanyadoo kale dhadadaas cudurro fangasa ayay ku dhalisaa oo dhibaato ku noqon kara inuu geedkii o dhan uu gubto sidoo kale qorraxdoo kale inta saaca ay jirto dabaysha xooggeeda iyo dhinacay u jeedo waxyaabahaasoo dhan waa inaad ka fakartaa inta aadan dalag u dooran beertaada waxa labaad oo aad ka fakaraysid oo dalagaaga saamaynayana waxa weeye ciidda xaaladda ciidda dalaga aad abuuraysid ama nidaamka oo dalaga aad abuuraysid ma u qalmaa ciiddaadu nooca ay tahay ciiddaada ma ciid bacaad ahaa ma siltiya ma mid kale ah oo ciid dhoobey ah miyaa ma u qalantaa taasna waa inaad ka fakartaa intaadan abuurin tusaale ahaan geedaha la yidhaha root cropska sida basasha iyo kaarootada iyo baradhada iyo waxay ku fiican yihiin ciid well drain la yidhaahdo oo aysan biyuhu dhex fariisan oo biyuhu ka dhex bixi karaan ayay ku fiican yihiin oo ciid furfuran ah ayay ku fiican yihiin oo drainage inay helaan oo ay ka baxaan biyuhu aad ayay muhiim ugu tahay geedaha noocaasa maxaa yeelay waqti dheer ayay waxay ku jirayaan ciidda marka sidaas darteed haddii ciiddaadu ay tahay ciid dhoobey ahoo kale baradhadoo kale waxaa la sameeyaa waxaa loo dhisaa raised bed ayaa loo dhisaa faa'iidooyin kalena waa u leedahay baradhada oo raised bedkaas way u leedahay oo ciid oo markii loo dhiso faa'iidooyin aan ahayn inay biyuhu drainage sameeyaan oo ay ka baxaanna way u leedahay marka sidaas darteed waa inaad ciiddii iyo dalagkii waa inay iswaafaqsan yihiin oo isku fiican yihiin xaaladaha ciidda waxaa kaloo ka mid ah oo loo rabo inaad ka fakartid pH-keeda ciidda kaba soo qaadoo kale masagoo kale haddaa abuuraysid ciidda pH-keedu wuxuu ku fiican yahay inuu yahay 6 ilaa 7.5 sidoo kale galleyda 5.8 ilaa 7.2 oo kale ayay ku fiican tahay marka sidaas darteed dalagyadan galleyda iyo masagadoo kale camal waa lagu abuuri karaa ciidaha alkaline-ka ah loo yaqaano oo Soomaaliya ciidaheeda ay ku badan tahay ayaa lagu abuuri karaa laakiin waxaa jira dalagyo u dulqaadan kara ciiddu haddii ay tahay acidic oo lagu abuuri karo sida bariiska oo kale kasaafo oo kale cambahoo kale dalagyadaasoo kale way u dulqaadan karaan in lagu abuuro ciidaha acidica ah laakiin masagadoo kale ciidaha acidica kuma fiicna lagumana abuuro haddii lagu abuurana wax soo saar fiican ma lahan marka waa inaad ciiddaada pH-keeda tijaabisaa oo ka fakartaa sidaas darteed dalagyo haddii cusbadu ay ku badan tahay u dulqaadan kara waa inaad ku abuurtaa waxyaabaha kaloo ciiddaada xaaladeeda kuu keenaya inaad ka fakartana waxaa ka mid ah ciidda nafaqadeeda maxaa yeelay dalagyadu isku nafaqa uma baahna qaar nafaqa saa'ida ayay u baahan yihiin qaarna nafaqa ka yar marka sidaas darteed ciiddaada nafaqadeeda haddaad tijaabi kartid waa fiican tahay inaad ogaatid si aad ugu abuurtid dalagyo waxaa jira ayaku soo saari kara nafaqadooda weliba nitrogenka sida geedaha loo yaqaana legumeska sida cloverka alfalfa peas iyo beans digirtoo kale waxay leeyihiin nodules oo iyaku bacteria ay fiksi garaynayso nitrogenka u fiksi garaynayso sidaas darteed nitrogen ayakaa samaysan kara marka haddii aadan iibsan karin markasta nitrogen aad beertaada ku shubto waa inaad crop rotationkaaga ku dartaa ama aad abuurtaa dalagyadaas iyo geedahaas loo yaqaana legumeska waxyaabaha kale oo ay ku xiran tahay dalaga abuuranaysidna waxaa ka mid ah biyo kugu filan ma haysataa baraag ma kuu qodan tahay ceel miyaa leedahay roob kugu filan oo xilligaas aad wax abuuraysid ma kuu da'aa iyo haddii roob kugu filan uu kuu da'o hal mar miyuu kugu da'ayaa mise xilli dheer ayuu kugu da'ayaa si dalagaaga uu u heli karo ilin mogtaha waxa meelo badan waxaa ka da'a roobka xilli kooban ayuu ka da'aa marka roobkii haddii uu u baahan yahay dalagaan inuu 3 bilood 4 bilood uu ciidda ku jiro uu baxayo roobkaagu uu 4taas bilood uu isla socoto uusan da'ayn waxa fiican inaad abuuratid dalag si dhaqso ah aad ku soo guran kartid oo xilli kooban soo baxaya intaas roobku uu jiro marka waa inaad iswaafajisaa inta roobku uu da'ayo iyo dalagaan inta uu baxayo waxaa kaloo iswaafajinaysaa biyaha uu u baahan yahay oo saa'idka ilaan waa naqaanaa waddanka Soomaaliya 250 milimitir oo sanadkii ka da'a ilaa 600 oo milimitir ayay u dhaxeeyaan roobka ka da'a marka sidaas darteed dalaga aad abuuraysid hadduu biyo badan u baahan yahay meelaha qaar Soomaaliya kuma fiicna in lagu abuuro tusaalahan haddii aad fiirisid qoraalkan ay soo diyaariyeen FAO ay uga hadlayaan dalagyada kala duwan iyo inta ay u baahan yihiin xilliga ay korayaan digirtoo kale 300 ilaa 500 oo milimitir ay u baahan yihiin qarahoo kale wuxuu u baahan yahay 400 ilaa 600 yaanyadoo kale 400 ilaa 800 waa ujeedaa dabcan marka waa inaad ku doorataa dalaga meesha uu ka baxayo iyo inta roob ka jirta waa inaad isku doorataa labadaas waa muhiim sidoo kale waxyaabaha ka fakaraysid ayadana waxaa ka mid ah biyaha tayadooda waa nuuce iyo nidaamka aad wax u abuuraysid
haddii marka aad drip irrigation isticmaalaysid qaabka loo isticmaalayo bumpska u baahan tahay inaa habaysid qarashka saa'idka ku baxaya biyahan tayadoodu liidato oo laga yaabo mararka qaar inay meeshii biyo kasoo baxaya inay kaa xiraan nidaamkaasoo dhan isagana shaqo badan iyo hawl badan ayuu rabaa taasna aqoonteedii iyo qarashkeedii iyo nidaamkeedii ma u degsan kartaa taas ayay iyaduna ku xiran tahay waxaa jira waxa la yidhaahdo cropping system options oo ah jaanis ma haysataa inaad isticmaashid waxyaabo kala duwan sida waxa la yidhahdo intercropping oo inaad dalagii isku dhex dartid ama waxa la yidhahdo mixed cropping iyo multi story cropping waxa la yidhahdo ayaa jira ayadana oo ah tusaale ahaan coconut iyo dalagyo kala duwan dalagyada dhaadheer iyo geedaha dhaadheer inaad geeda yaryar oo gaagaaban inaad ku hoos abuurtid marka nidaamyadaas oo dhan kulley markale insha allah aan ka sheekay doonaa oo intercropping iyo mixed cropping iyo multi cropping la yidhaahdo iyo xataa relay cropping inaad samaysid iyo crop rotation nidaamyadaas oo dhan inaad samayso ma awoodaa haddii nidaamyadaas oo dhan aad awoodid inaad samaysid iyo qaabka loo maamulo waxay kuu sahlaysaa dalagyo kala duwan inaad isku dhex dartid faa'iido fiican ayaana laga helaa aad ayaa la isku dhiirigeliyaa xaaladaha qaar inay dadku isticmaalaan marka aqoontaada oo nidaamyadaas kala duwan iyaduna waxay saamaynaysaa go'aanka aad gaaraysid dalagga aad dooranaysa ayay saamaynaysaa dalagga aad abuuraysid iyo nidaamka aad dooranaysid iyaduna waxaa saamayn ku yeelanaya aqoontaada iyo experiencegaagii hore ee ku saabsaneed wixii aad abuuri jirtay marka haddii aad haysato experience hore dalagyo aad abuuri jirtay ama qof aqoon u leh uu kula shaqaynayo waa kuu sahlan tahay inaad marka aad dooratid dalagaas taas waxay kuu sahlaysaa marka cudurrada ka jira oo ku dhaca dalagaas iyo beertaas si aad ka hortag aad u samaysid midda kale dadka beeralayda ah oo meesha aad joogto jooga ayaad weydiinaysaa oo waraysanaysaa oo waa muhiim dalagga aad rabto iyo nidaamka aad rabta inaad geliso inaad weydiiso inuu u qalmo ama faa'iidada ay ka heleen ama dhibka uu u keenay nidaamkaas taasna waa muhiim inaad weydiisid dalagga aad dooranaysid iyo nidaamka aad dooranaysid waxaa kaloo saamayn ku yeelanaya faa'iidada aad rajaynaysid oo isleeda aad ka heshid beerta aad kasoo saartid ama riskiga aad diyaarka u tahay si aad faa'iido fiican aad uga heshid beerta kaba soo qaadba dalag aan waddanka laga abuurin haddii aad keento oo aad rabto inaad 30 hektar oo beer aad geliso faa'iidada aad ka heli karto way badan tahay haddii uu suuq uu leeyahay halistuna way badan tahay maadaama aadan dalag aadan hore u abuuri jirin oo aqoon fiican aadan u lahayn aad abuurto halista kaaga imaan kartana waa sidaas darteed waxaa fiican qofka haddii uu rabo inuu wax cusub uusan samayn jirin ama nidaam cusub uusan samayn jirin ama dalag cusub uusan samayn jirin ama daawo cusub uusan isticmaali jirin waxaa fiican inuu si yar uu ku bilaabo kabacdina uu sii ballaariyo markii experience uu helo si aad u yarayso halista kaaga imaan karta inaad qalad samayso waa inaad yaraysaa marka sidaas darteed haddii aad beer 30 hektar aad leedahay oo rabto dalag cusub iyo nidaam cusub inaad ku bilowdo 1 hektar ku tijaabi arag waxa ka soo baxa qaabka ay noqoto arag wixii aad qalada arkaysaa kabacdi ayaa waxa isku dayaysaa inaad farsamadii bedesho oo aad hagaajiso adoo hadhow isku kalsoon ayaa 30 hektar geli kartaa marka nidaamka cusub dabcan midda kale oo ay ku xiran tahay go'aanka aad gaaraysid iyo dalagga aad abuuraysid dhaqaalaha aad haysta ayay ku xiran tahay iyo dhulka aad leedahay kaba soo qaadba dhulka markii aad leedahay qaabka aad u maamulaysid iyo qaabka dhulka marka aad lahayn waxaa laga yaabaa marar badan inaysan isku mid ahayn sababta qofka dhulku markuu leeyahay 20 sano soo socota 15 sano soo socota ayuu wuxuu ka fakarayaa sidii uu maaragtay kor ugu qaadi lahaa nafaqadeeda cusbada inay ku badato uga ilaali lahaa waxyaabahaas dhan ayuu ka fakarayaa laakiin qofka haddii 2 sano la siiyo waxaa laga yaabaa inuu fududaysto muhiimadda ay leedahay arrimaha noocaas oo kale ah marka sababtaas darteed ay wax ku fiican tahay qofka hadduu rabo dhul inuu kireysto oo beer ah inuu waqti dheer uu qaato taasna faa'iido waxay ugu jirtaa qofkii dhulka lahaa iyo qofkii dhulka kireysanayaba sababtoo qofkan dhulka kireysanaya wuxuu uga fakarayaa markaas inuu mustaqbalka si u hagaajin lahaa ciiddaas xilligaas uu joogo midda kale oo u baahan tahay inaad ka fakarto waxa weeye ayadana dhulka intuu la egyahay iyo dalagga aad abuuraysid kaba soo qaadba haddii aad rabto inaad qamadi waddanka aad loogama soo saaro haddaad rabto qamadi inaad abuurto kale 1 hektar laguma abuuro qamadi waxna ugama soo baxayaan dhul weyn ayuu u baahan yahay machineries ayuu u baahan yahay dhaqaale fiican ayuu u baahan yahay si wax looga soo saaro laakiin qudaar yaanyo kala camar hadda 1 hektar ku abuurtid oo siday taa u abuurtid faa'iido waa ka soo saari kartaa marka dhulka intuu la egyahayna waxay ku xiran tahay dalagga aad dooranaysid sidoo kale dalagga aad dooranaysid wuxuu ku xiran yahay shaqaalaha aad haysatid iyo inaad machinery haysatid ama cagafyadii aad beerta ku fali lahayd inaad haysatid marka isla tii hadda aan ka hadlayno kale weeye oo badanaa markii la rabo in qamadi iyo lasoo saaro iyo galley iyo dalagyadaas inta badan waxaa la isticmaalaa machinery lagu duugo hadhowna lagu soo guro taas marka waxay noo keenaysaa inaan la tartami karno
cuntooyinka dibadda laga keeno laakiin waa adag tahay in aan kula tartanno inagoo gacanteena isticmaalayna qiimo ahaan way adag tahay inaan kula tartanno kuwaas dibadda laga keeno laakiin markii la abuurayo sida yaanyadoo kale iyo barbarooniga oo kale waa la isticmaali karaa badanaa waa missionary la'aan ayaa la abuuraa meelo badan oo adduunyada ka mid ah marka sidaas darteed dalagga aad abuuraysid iyo missionariga iyo shaqaalaha aa haysatid waa inay isleeyihiin ayadana sidoo kale technologyga waddanka ka jirta iyo dalagga aad rabtid inaad abuurto ayadana ma isleeyihiin haddii tii aan ku celiyo kale qamadiga oo kale haddaan ku celiyo qamadiga wuxuu u baahan yahay warshadihii lagu soo diyaari lahaa oo lagu soo burburi lahaa oo inta daqiiq looga soo dhigo bur looga soo dhigi lahaa ma ka jiraan taas meesha aad joogtid oo dalagyadan aad soo saaraysid macquul ma tahay meesha aad joogtid in inta lagu soo habeeyo ayadoo diyaarsan xataa hadday noqoto masagada inta lasoo burburiyey oo lasoo bixiyey iyadoo diyaar ah in suuqii la geeyo macquul ma taha marka technologyga ka jirta iyo nidaamka ka jira meesha aad joogtid ayay ku xiran tahay sidoo kale dalagga aad dooranaysid dabcan midda ugu muhiimsan oo adigana qasab ay tahay inaad ka fakartid waxa weeye suuqa ma laga rabaa ama nidaamka ka jira suuqa ma kuu sahlayaa inaad ka ganacsatid dalaggaas aad abuuraysid haddii marka dalaggii ay suurtagal tahay inaad soo saartid oo dadkiina ay rabaan dalaggiina uu u baahan yahay qaboojiye suuqa ma ka jirtaa kaba soo qaadba dalagyada aadka u muhiimka aadka loo soo saaro adduunyada waxaa ka mid ah strawberry oo kale waa geed aad u fiican dabcan soomaaliyana dadku waa gadan lahayn ayaan aaminsanahay waana la gadanayaa laakiin dhibaatada ka jirta waxa weeye haddii aan qaboojiye loo helin si dhaqsa ayuu ku halaabaya marka waa in dalaggiina aad fiirisaa suuqa in loogu baahan yahay nidaamkii iyo infrastructurekii suuqa ka jirayna ma taageeraya dalaggii aad soo saartay taasna inaad ka fakarto waa qasab waa u baahantaha marka waa inaad ka fakartaa su-aalahan oo kale waa inaad ka jawaabtaa xaggee ku iibinaysaa gormaa iibinaysaa yaa ka iibinaysaa dadka oo intermediateka la yidhaahdo oo adiga iyo dadkii iibsan laha idiin dhexeeya ma ka maarantaa oo adiga ma isku dayi kartaa inaad dadkii rabay si toosa aad uga iibi karto waxyaabahaasoo dhan ayaa u baahanta inaad ka fakartid waxaa kaloo u baahanta inaad ka fakartid markii aad soo guratid meesha aad dhigi laheyd qaabka u dhigi laheyd iyo haddii ay suurtagal tahay inaad process ku samaysid oo aad bedeshid nooci ay ahaayeen kaba soo qaadba baradhoo kalaad soo saartay ma awoodaa inaad jibsi ahaan inta u jarjarto u diyaariso aad suuqii geyso oo maqaaxidihii iyo carradii aad ka iibsato adoo jarjaray haddii aadan haysan qaboojiyayaal oo aad basaloo kale inaad awoodda saarto oo aad meel ku dhigto saasoo kale ilin waqti badanay kuu ooleysaa iyo baradho intii aad soo saari lahayd strawberry oo hore ka halaabaya suurtagal ma kuu tahay inaad basal iyo baradho iyo dalagyada aan hore ka dhacayn inaad awoodda saarto waxyaabahaasoo dhan marka inaad ka fakarta ayaa u baahan tahay inta aadan dooran dalag marka su-aalahaasoo dhan ayaa la rabaa qofka beeraleyda ah inuu ka jawaabo inta uusan dooran nidaam ama dalag uu beertiisa uu ku abuurayo weliba haddii uu ku cusub yaho kale camal inuu ka fakarayaa mararka qaar waxaa laga yaabaa adiga laftigaaga inaad 10 sano beeraha ku dhex jirtay faa'iido weyna inaad ka heshid haddii dalag cusub oo uul abuuri jirin aad ku soo darto inaad suuq fiican ku hesho iyo faa'iido fiican inaad ku hesho ayaa laga yaabaa mararka qaarna waa laga yaabaa inuu dhib kuu keeno marka sidaas darteed waxyaabahaasoo dhan hadday noqoto cimilada hadday noqoto ciidda hadday noqoto biyaha hadday noqoto cayayaanka aqoonta u leedahay iyo qaabka u maamulaysid technologydaada storagekaaga post harvesting si u maamul lahayd waxyaabahaasoo dhan adoo ka fakaraysid waa inaad iyo shaqaalaha aad heli kartid oo beertaada u heli kartid waxyaabahaasoo dhan adoo ka fakaraysid waa inaad iyo dabcan midda ugu muhiimsan oo ah miro tayo leh inaad heli kartid waxyaabahaasoo dhan marka adoo ka fakaraysid waa inaad go-aan gaartaa marka dalagii aad abuuri lahayd marka waxaan rajeynaya inaad videoan ka faa'iidaysteen intaan marka video kale kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo beerasho wacan